بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا شيء معي مر لبعض محل مشاركين من القب قادنا دور كني إن شاء الله قصة لبصوري الشيخ محمد متولي الشعراوي إله نحارسته شيخي عنكها قصة سوولي وريو لي هي waxaan u soo gurigayga ana u soo socdo buu yiri maghrib horteed saacad maghrib horteed maalmaha ramadaan bil ramadaan ayaa waxa uu joojiyay buu yiri nin faqiira oo saboola oo ragga masaajidka casharkayga matqaan markasta uu soo noqnoqdo u yimaada kaas wuxuu ugu salaamay salaam ka shiilaab ka soo godama dee qalbiga farxad leh oo jecel matqaan igu salaamay xiisa badan leh oo ishaydu ka ilmaysay buu yiri sar uu farxad ugu salaamay ugu soo dhaweeyay wuxuu ugu yiri ninkii ilaah baan ku dhaarshay wajhiga ilaah baan ku dhaarshay maanta ila afur dhankay ka afur buu ku yiri sheekh wuxuu yiri waxa carabkay guntay buu yiri xiisaha uu qabay iyo matqanay iyo rabitaanku uu rabay in matqanay inuu dhaajiyo matqanay codsiga uu codsaday ayaa carabkay guntay qalbigaygiina wuxuu ku farxay matqanay inuu ajiibo mas'ala waxaan ku yiri walaalow raakaygiba isugaya waqtiguna ma samaxayo أي ما هذا حولي وحسكانو دبقة إنك بتقاني كبرراعي أليه تبنيني راع أنا قرني يقول قسمالي هاي الطريقة دروفتي سوقت وحاضر كان يوقت كان متقاناي أفركي وحبك هرسانو قرنينين أنا هدانك أشي بيدو وحن تغلب قرقي سوان قارني قرقي حقا قوبنا مخصن أما قول iyo jikadiisii ama madbaxiisii oo maxaan ku dhahdaayay daarad yar oo in yar matqana oo hortaaro guriga hortiisa ah ayaa oo u banaan subax u banaan ayaa wuxuu yiri ayuu ka iibsaday matqaana dadka cimaarada loo ka iibsaday ninku oo ma xulay meel yar jaranjar yar loo koro oo qori ka sameysano laba qof wada qaadi kareynin si guriga kor loo kaco wuxuu leeyahay iyo sheeg jaranjar yar oo maxaan ku laba qof mooda qaadi karto laana qorigaaba gaboobay oo sanqadh ay matqaan socodka badan iyo matqaanayay lugta ku badani dareemaysa matqaan guriga dad jaranjar aad iyo aad daciifa laakiin farxadda ninka ku sugnayd buu iyo sidoo u mahadnaqay iyo soo matqaanayay ma sha Allah carabkiisiiba kamay baxayn inuu yiraahdo alxamdu shukrillah ilaahay sayidi in gurigan hantidaydu weeye hanti ilaahay baa iska leh guriga aniga adduunka cid maanta garshigu leh ma ay jirto ya rugti la soo baxda waagi bariyaba qorraxda gurigeegas qolkayga si matqaanayay ayay ku soo iftiinta ku soo baxda buu qorraxda ku soo baxda gabalkuna dhan kale ka dhaca buu yiri hakana quraanku akhristaa subax kasta fajr kasta gabalkuma dhacaan hakaas matqaan igu dhaca xaaskayga ilaahay ka raal noqdo hakaas la fadhiisata daaqada agtiisa fadhiistay ii ducaysaa buu yiri والله بيقول واحد المسكون ملاي بيقول إنه كنا ولا هيك شنادي وأنا كيس فقير كواحد كوش كاني إنه شنادي كنا ولا هيك مسكون ملاي بيقول شيخ وحوري مو عنك هالكم وهذا كاو مرنا يبوكون أنا قلنا أن درنشتي تسيد بس عضو قناة كبغاني كسر عضو ماش كسر شل وضبع أيه وحنا قال من مقصين كيبان قاني وان فلسطين نيكو تجو وحوقت حاس كيسي وقلي وحنا مقلبو يعط يرقابا ونيكو جورج لها وكل هي حاس كيسي أفرك دياري شيخ ومات ونلا أفريا شيخ ونلا أفريا دياري يحاس كيبان مقلوق وجواب صالح والله جورجة وحنا عنا ميالان أنفول هين أيضا كينا وحكمي هربا نص ساعة أنا هيني وحلا كرين كراؤنا يا جورجة ما بشرتو الوقت حتى دي شر هاي الوقت ما بينو سامحين وأفرك بسوق لي ما كان الشيخ يقول أنت هوان مقلي أيا maxaan ku rahday ii soo baxay ninkii matqaanayay maxaan ku rahday guriga laaba soo baxay kaasaan ku buu yaa akhi walaalkayo sharad baan leeyahay sheekh oranaya anigu buu yiri waxaan afuraa buu yiri marka la adimo Allahu akbar la adimo marka hore biyo iyo timir baan ku afuraa ya timirna waan hayaa ومعي ما ها تمر وانا هيستبيل بيها يتبتم كو افرا كدب نص ساعه كدب بانان افرا بو يدي نمك ايدان ku dhaco بس marka wax macna bu ka wadan amti oo reerku mataqaana oo si mataqaana xal asturaya oo ka galay waxaan ku kadis ku noqon mataqaana dal kareelin islaantii waxay karneeyay waxay sameeyay lahaydba wuxuu yiri talabaad buu yiri anigu marka calooshay timirta iyo biyaha erdada mataqaana ide ka faa'iido aan tukada buu ku yiri aan wardigayga yoomgayga dhamaysto kadibna waxaan cunaa buu wax kale ma cuni kara aan fuulkahay fuul madam sari baradha yar ya kaasuni fiiri amarka sayid waayahay ya subhanallah kaasaan ku yiri hadaba iska kayda aniga ilaahay aan isku kaliisan sheekha oranaya yani intaasaan iska ducaysan iska cibaadaysan afrika hadhay wuxuu doonayba ii hergashay buu yiri waan la afray buu yiri wixii intay sameeyay ma sha Allah waan ka tagay buu yiri
يعني waxaan u dalbaday buu sheekhu baradhada xitaa waxaan u dalbaday buu kala xilwan ogahay buu inay tahay quudka dadka fuqarada ama dadka saboolka ah ya waxaan u maleynay buu kulay inay haystaan يعني سان أوسي كلفين فول يوم يعني سير إنه يقدر ما إني شيخ لويين وحي متقنع عتاك سنة الرجال وحي وشعلابه بيقول لي نعتبر الذي وشعلابه وشاكتي يفول كما تقنعي ويلوا بنعنا سكون أيوة قصي حل قرنية بقى سبحان إنه سي كذا المر بالمدام نيكو سوق ضربوا عزومة وحنكب حبوي الجوري أنا كل جيبة فرحت iyo kaale arag buu yiri yani san ma sha Allah bahja surur farxad baqalbiga ku jirta buu yiri waxaan isu subhanallah ninkani adduunkiyo dhan carabkiisa uu qurxiba adduunkiiba jeclaysiiyaba yani subhanallah afkiisa waxa ka soo baxaya ninkan saboolka waa mahad Allah subhanahu wa ta'ala ilaahay ugu faraxsan yahay ilaahay ugu mahadnaqayo nimcadan ilaahay siiyay xitaa maqsinka yar inta yar saa faqiirka ayaa isaga la ma sha Allah tabarakallah buu yiri nolosh ilaahay huwa jamiil buu yiri sheekhi baa inoo sii wadee wuxuu yiri kadibna buu yiri ayaama dambe kadib koox bay casuumtay buu yiri oo dadka ma taqaanay waaweyn ma taqaan waajhadna loo yimaado laga dambeeyay buu yiri nin taajira oo ganacsi weyn ayaama taqaan dadkaasi isku wada yeelo casuumay dadka waxa dad farbadan ilaahay ku nimcaystay oo nimco xoolo iyo ma taqaanay jaah iyo awlaad iyo xasab iyo nasab wax lagu faano dhanba dad ahba ayaa ku soo xaadiray meeshaas buu yiri martaqaadkan waxa lagu sameeyay meel beer oo kaal aragde barwaaqada istaan dhan weeyaan buu yiri oo wax kasto niyadu jeceshay oo dhan ay taalo beertaasi ku beeran tahay oo guri dhexdeeda ku sameeyay muddo qasar buu yiri beerta dhexdeedana qasar guri aad moodid oo kaal arag buu yiri oo maxaa fardihii ku hor xidhan yihiin oo fardii asalka ahayd ee qaaliga ahayd ay kamid tahay buu yiri sheekh wuxuu yiri markan halka ku afurnay ninka gurigiisa ku afurnay dabacna buu yiri inaan soo baxno ayaa waxa ila kaliyeystay ila soo gooni ila soo baxay ninkii dacwada dacsuumay iyay wuxuu iga ashtakooday waa ninkii waxa soo xoolaa lahayaa wuxuu iga ashtakooday diiqa nolosha buu iga ashtakooday iyo ganacsiga iyo hamiga qamiga saarantahay ganacsiga businesska tijaarada la sheegaba wuxuu iga cawday buu yiri tacabka awlaada iyo dabeecadda xun xaaskiisu ay leedahay iyo damaca dadka agagaarkiisa waxay ugu damacsan yihiin ay ku hunguroonayaan wuxuu iga ashtakooday buu yiri masaariifta faraha badan uu bixinayo soo dadkan u wada raali geliyo ya subhanallah iyo hamiga adduunkan ku sugan tahay iyo inuu jeclaystayba inuu dhinto soo uga takhaluso hamgan iyo qamigan oo dhan sheekhu baa sheekada wada wuxuu wallahi buu yiri min abaalka minkan ka soo baxay ilaani intan abaal gaariga soo koray buu yiri ninkaasi adduunkii indhahay ku madoobeeyay همي غمد ممكن الله شذا كان يجيبوا كوري يعني عرير دي قد بان دريمة بويلي سبحان الله قصان عرك آجي ما كان قاري يقفولي قصان الحمد لله على نعمة الرضا إلهي بمهدوك سكون ترى لها شان معاذ قف كل رال كل نقضوح إلهي بمهدوك سكون ترى قلبي كان كإيد بويلي سعادة ما هبوا مكاليبان ما هبوا ليه شيخي فربطني وحن بحنا ماها لكن سعادة وحوين حسن الصلة بالله وحريرك وناكسن إلهي للي هي iyo mataqaana lagu raalihay qismada xuquuq qaybta ilaa kugu talagal ku siiyay in qof ka raali noqdo ayay tahay buu ku yiri sallallahu alayhi wasallam barak ala nabiyina muhammad sallallahu alayhi wasallam hadalkaas oo dahab lagu qoro ama xikmad badan ku sugan tahay ayuu sheekh maxamed mutawalli shacraawi hadalkiis ku dhameeyay waxaan ku darsanana marka anagu insha Allah taala waa runtii haddaad u aragtid dad fara badan baa isku maleynaya mataqaana markastoo adduunka leh soo kordhi waxaan hami qami hay mooyaan waxba ma sii kordhaanba waayo ilaahay ba uguma mahadin marka wuxuu kartidiisa iyo fariidmaysan ku keenay ilaahay ba waxaan ku siiyay ma oranayo subhanallah ilaahay ba tan siiyay waa lagu imtixaan ilaahay mahadiyo xaq ilaahay kala hana an ka bixiye dadku waxay ku farxsan yihiin waxa liibaanta runta ay tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala jaceelkiisa mar kasto ilaahay jeceshahay oo ilaahay xab ku tahay wuxuu ilaahay ku siiyay mar kasto ilaahay mahadinaysa waxaan ku siiyay shukriyaysid qalbigaaga waxa ku dagay xasilooni la yiraahdo yaani matqana sakiina iyo xasilooni iyo qalbi qabow iyo qanaacad iyo qanaacatu min al-iimaan bari kanz la yafna wa kanz ana matqan dhamaanayni weeyaan qof ma ku qanco wuxuu ilaahay siiyay xoolo iyo awlaad iyo maal iyo adduun iyo cilmi waxay noqoto baa noqoto ilaahay wax la'aan baa noqoto haduu ilaahay leeyahay alxamdulillah qofku leeyahay wax ka dhiban ma jirto laakiin qofku leeyahay soo badi intuu leeyahay soo badi ba inta horena ilaahay ma hadin waayo nimcada ilaahay waxa lagu xajiyaa bishukr marka ilaahay shukr waqaliilu min cibaadihi shakur bukul waqaliil dad yar ayaa umada ilaahay shukrida markasta matqana waxa weeyaan dadku way siinayaan awlaad caafimaadka arsaaqada wax kasta la haysto la siinaya kasoo badi mooyaane inta horta qiimo ma yaqaan dadku intooda badani
إلهي نغمر قواس وكلا إلهي إذن كي وحن دوننا إن نقول ذلك إلهي كراليا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم بكل صدح جرمان تقف خدو يلاحظوا قبل لعي وبربا لبس صدح ذات جرمان كو يلاحظوا رضيت بالله ربا إلهي ما كرال نقول إن رب إيهي ورضيت بالإسلام دينا الإسلام كن الدين الإسلام كتب إلهي كرال نقضي وبمحمد صلى الله عليه وسلم النبي محمد الرالب النبي جيهي إلهي حق حقوية شيء إلهي سن الرالي قليل marka intaas aa u daymo la'aanin intaad leedahay adduun ka gaar mis waxba intaad haysatid ay seejinine walaashay walaalkayow ilaahay u mahadiy alxamdulillah rabbil alamin nimcada islaamka u horeysana ugu sii mahadiy dad baan islaamnaba haysaninba marka soos leedahay maxaan ku rahdaa cilmi baa lagu yiri adduun haday noqoto ninka hooseeya eeg ninka ka hooseeya adduun haday noqoto eeg adiga marka taada waxa mudanta inaad mahadis wax haystaan alxamdulillah waba fiican inuu waba dhaamo qofka caynka xeel ku taagan yahay waxba haysanin ilaahay ma ha cashan ilaahay wuxuu manay isaga ilaahay san ku imtixaanaya wax la'aanta adiga lagu imtixaan wax lagu siiyay cilmi marka noqotana ka sareeya eeg oo marka wax tiigsataa adna cilmiga sareeyna doonatid cilmiga ilaahay ku sii dhawaan si khaasatan cilmi adduun ma cilmi aakhiro qabriga marka qofka la dhigo la oran maayo professor buu haa jaamacad hebel buu soo qalin jabiyo shahaadadaas guriga u taalo intaasoo ayuu soo dowlad u qaatay waxa la oranayaa man rabbuka wa diinuka maxaan ku rahdaayay waman nabiyuka saddexda haduu ka jawaabo kaasaa baa soo liibaano shahaadada u dambeysay ba qaatay marka taas adoo markiis hore adduunka ku joogo garanaynin kuna amal faraynin wana runtii matqaanaayay waajibaadkeedii xuquuqda faraysa una ku dhaqmanaynin inuu khasaara laga baqanayo wal billahi ilaahay lama khasaariyo ilaahay nagu sugo kelimada tawxiid la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah marka waxaan leeyahay walaalada shukr lillah shukr ala nicma shukr lil qanaaca qanaacatu kanzun la yafna weeyaan dad badan baa laga sheekeyn jiray nin xoolale oo maalintii ilaahay soo muruga iyo qaylay qaxal ku nool inaan waxba haysan hadana ilaahay ma sha Allah tabaaraka farxaan oo qanacsano qoslayo dholo cadeyn iyo dadka kale had sheeganayaan oo isku farxaana because intan ku qanacsan yahay wax dheeraada marababa dad nimcada dad waayay iyo dad xajin waayay dad kale noqdeen qasbar badan baa ku jirta dib lagu noqdo maxaan ku rahdaay marar dambe ka sheekaysan doonaa dad yiri nimcada ilaahay ban xajin weynay ما أعرف كما أعرف لكن دفع الكود بايدي وحجوا ويجروا إن إلهي ومهديان تاني مكا إلهي سبحانه وتعالى وكحيوبين كرا هدو كحيوبين وايان وكقاد وايان والجو امتحاني والجو إيجيا مكا إلهي إنه شكري مكسو نقنو إلهي إن برنو إلهي كو صلاة بتاعي نقنو إلهي كو مكسو شكري إن نقنو كو سنة النبي عليه الصلاة والسلام كو رقم إن نقنو كوب كبير مكو عبية حبد الشيء وحقاته الحمد لله شكر الله بقولني إلهي هذا المهد سيدنا إلهي كو زيادين نفتنا فينا قدر دار تقوى الله لك عبسيين إلهي كعبسيجيسة إلهي ودواشيسة أيام خير بدنا بنقول صوص عضة به تمنك عشاء دونك وخرك بدنا نقول فضل بدنا صوص عضة الحجة إنه كل شيء شقيست وسي الدلال عبادة يستني يدك وسي قبض عمل ونكسنا إلهي أنا قدقو إلهي توفيق تصار إنه يستيو إلهي نقرر نقضو دم بجاني دم بجواد كم بالله دافو جنة إلهي نقول بشارية عفي عفمد لها نسيو أدون سنة آخر سنة لها نسيو وبالله توفيق وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله فضلا اسلام مشاركي اسلا شير قريه سبسكرايب كإلو بنا سمرك سوح عصبنا صور عن إن شاء الله تعالى ولا لدينا كلب خيلنا خير قارسي وأنت سوقفون كفائدة استاب بإذن الله تعالى إلهي نقود أنفعنك يا نكبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.